xafladda lagu daahfurayay xarunta Classic Stadium and Fitness Center ayaa waxaa xariga ka jaray madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdulaahi Cumar Camey waxaana madasha ku sugnaa qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada dawladda maamulka gobolka Nugaal kan degmada Garowe mas'uuliyiinta safaaradda Itoobiya iyo qaar ka mid ah qaybaha bulshada ku nool magaalada oo daahfurka xaruntaasi ka qayb galay. xarunta Classic Stadium and Fitness Center ayaa waxay isugu jirtaa garoon kubadda cagta lagu ciyaaro isla markaana la dhigay caws macmal ah xarunta jimicsiga iyo garoonka lagu ciyaaro kubadda gacanta ee volleyball-ka. xubnihii golaha wasiirada dawladda maamulka gobolka Nugaal iyo kan degmada oo goobta ka hadlay ayaa soo dhaweeyay xaruntaasi iyagoo sheegay inay tahay mid dhalinta laga weecinayo wadooyinka xunxun sida tahriibta ku biirista burcadbadeeda iyo inay dhibaatooyin kale ay ku kacaan. Axmed Jaamac Jawle oo ah milkiilaha xaruntaasi ayaa bahda warfidayeenka uga warbixiyay ahmiyadda uu ka leeyahay in xaruntaasi uu hirgeliyo. dhalinyarada soo koraysa ama rag ha aadaan ama dumar ha aadaan waxaan u sameynay meeshii kubadda ku ciyaar lahayn cagta oo ah yani la jaan qaadi ka dhaan oran karnaa dunida garoomada lagu ciyaaro basketkii volleyballidii gymtii iyo cafeteriadii halkaas servicekaas oo isku dhan waxay kaga faa'iideysan doonaan waqti badan oo ay dambiye badan ku gali lahaayeen inay kaga badbaadaan sida tahriibta. gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Mudane Saciid Xasan Shire ayaa isna dhankiisa u mahadceliyay milkiilaha hirgeliyay xaruntaasi isagoo ganacsatada kale ku dhiirigeliyay in ay ku daydaan. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Axmed Jawle oo nin qiimo badan Puntland kamida ganacsatada iyo horumarka uu sameeyay dartiis baa inaad tuutahan soo gashado kubadda igu qasbay mar labaad iyo mar saddexaad ba waqtigo iska celiira waa mahadsantihiin. ku-xigeenka madaxweynaha Puntland Cabdixakiin Cabdulaahi Cumar Camey ayaa dhankiisa sheegay inay taasi ay qayb ka tahay goobo ay dawladda ku taamaysay inay ka hirgeliso magaalooyinka waaweyn ee Puntland. goobaha noocan oo kalihi waa waxyaabaha aan inta ka hadlaynay in la keeno si dhalinyaradu sidii madaxdii iga horeysay ay runtii iga hadleen asmaraash baaba si yani qeexan oo aada uga hadlay. sportska waa meelaha la isku barto waa meelaha afkaarta wanaagsan la isku weydaarsado waa meelaha yani kaa celiya wax xun oo aad samayn lahayd waayo markaad waqti hesho fara badan oo waxaad ku qabato aad weydo definitely waxay kuu kalifaysaa meelo badan oo aan loo baahnayn in aad gasho ama joogto waqtigaaga ku lumiso. Umar Maxamed Somane, Universal TV, Garowe.